السلام عليكم كولابا ألف باتا ABCD 1 2 3 وأنيقو أفرتون معنا عصب أركت عصب كسو دو channel كيغا هدات كيش فيديو غان لايك يتابو رأي هداربتنا ديبتيد كومنت كوكو قر أركتسان عمل هدارتي سبسكرايب كيلكوسي ما أنت فيديو وحو كسابسين هاي confession إيو شاكا قصل confession محاوا قفو قرانايو داد كانوا اسكو جيران صومالي أجنبي با وحالي وصو درا انستغرام كيغا قران أهان وحاسارا 4 كسته هالكاس كدبنا أف صومالي هنكسو بدلا انتا soo saara waxaan ugu talagalay inaan ku cimri qaadano sheeko qosol waxa adinkiina ay soo dirteen ugu talagasheen inaan ku wada qosolno marka hanoo bilaabato qofka koowaad wuxuu yiri confession waxaan ahay qof gaaban macnaha cilan waxa ay qabaan nin dheer oo caadi ah markasta dadka waxayna weydiiyaan xaajadiina see waaye say ku xaajootaan dadka waxay weydiiyaan maxaad u guursatay waxay dhahaan aniga waa nasiib badan tahay waxayna weydiiyaan caruurta aan dhali doono ilaahayna siiyo inay aniga amal ahaan doonaan qof gaaban ama asaga ay u ekaan doonaan taas aniga markasta waan ka xumaadaa wuxuu ilaahay haayo waaye ilaahay baasaan aniga iga dhigay maxaan dhib oo aan qabaa wallahi ma sha Allah tabarakallah dadku way kala fiican yihiin because aniga qof haduu i weydii lahaa oo adiga xaajigaaga see u xaajootaan misla egtihiin ama oolaada dhali doontiin maaday ku ekaanaysa waxaan ku yiri cayd afkayga soo baxo waxay xasuusan lahayn 7-7kii Soomaaliya Itoobiya markay istagaalayeen waxay soo xasuusan lahayn maanta ee hooyadeed fuulanayeen waxa waa diga fiican tahay ma sha Allah tabarakallah wax aqabtid male dadka markay sariirta saareen abaay way wada sameeyeen yihiin waxaan ku waray afkaaga iskaga dhici yeena kuliidin ilaahay baa saas ku sameeyay faraheena dhan ma wada simno dadkana ma wada simno isku ma wada eko unique baa tahay special baa tahay nin baa haysata dadku waxa laga yaabaa waxa isku dhahay inay nin haysan waxa fiican markaas amal maaragtay af mishaar inaan noqoto dadka hadalka ku gooysid markay su'aalahaas qaabta daran ay ku weydiiyaan aan ku tiraahdo don't worry be happy ina simanahay isa isku xaajoonina anaga naqaano ninkaan anu jecel yahay anu rabaa sida ahay buu igu qaatay walaal raaso adii sida tahay wax ku qaato afaan kuulo walaay dadku iga fiican yihiin ani waxaan ku yiri dambiya ursan laha waxa qabtid malaha abaayo ilaahay ku fududeeyo qof kasta dooqu leeyahay ninkaaga dooqiisa tahay kumuuna guursan lahayn haduuna ku rabin waxyaalaha kale tan ilaahay haayo dadka saas ku dhahay ku weydiinaa waa bilaa diin waa bilaa akhlaaq maseer baa ka buuxo awaba aytamin sida ani amal maaragtay حرف سورة سؤال دق سي كرتد إله كوفوضة قطي قف كان كله وحيري أنا جوري عصب بانقطي هذا نلو شيء ذو أنو حربي جوري عصب إن أنقضه هو إذا هذا وان قضي وانا أوذي إن أنقضه markii aan gaday kadib niyadeedu waxa soo gashay magaca hooyadaha ku qorin ilaahay wax uma keeno laakiin haday dhimato aniga ma rabo inaan la dagaaltamo walaalahayga marka go'aan waxaan ku gaaray intii ay nooshahay inay ku noolaato laakiin aniga magacayga aan ku qoro hadii wax ay dhacaan saa aniga gurigeyga aan shaqeysto lacagteeda aan ku shaqeysto aan ku sameystay una dhaxal iga galeen wax xun ma aha wax xun ma aha because waxa hooyada haday geeriyoto diinta islaamka haduu qof waalid dhinta ama qof dhinto dhaxalkiisa waa la kala qaybinaa wiilkan wuxuu soo qortay haday kula qaldantaa comment ku soo qor sababta ugu aragtid inay qalad tahay aniga shakhsi ahaan okay ila tahay wax xun ma aha hooyada intee nooshaha ku noolaata ayada askale markii teedeedu u maatana ilaahay ma keenay adiga ina lahaato marka it's fine qofkan kale wuxuu yiri confession ani si qarsooni ah ayaan waxaan u guursaday saaxiibkayga best friendkayga ah walaashiisa ilaahay ku fuudeeyo qodbasiro waxa la yiri ma jirto arooska maaragtay oo hoosta ma jiro diinteena ma ogola la yiri marka taas isku hubi macsiha isku galen iska hubi taas hadii waalid uu ku siiyo walaalka kaliya laga qarinaayana war kale waay qofkan kale wuxuu yiri aniga waxaan addicted ku ahay macnaha aan jeclahay shaaha markasta waan cabi karaa kirli shaah waxaan ku dhamay karaa saacad aniga obsessed baan ku ahay zaaidan ooga helaa shaaha hadda waxaan gaara meel hadaan shaaha cabin madaxa i xanuunayo waa in aan cabaa hadii kala madaxa i xanuunayo فوق برالا لديجي ما قانو سومالida meel ay ka keento xarafkaas laakiin shaxwu ahaya فوق برالا yahay فوق براal waa maqal jir ayay ku dhaho sidoo kafiga caffeine ugu jiro waxa maleena caleenta shaaxana inuu caffeine ku jiro wax dadka markasta ay u baahanayaan jirkooda laakiin waa maqal jiro hooyooyinka ayayooyinka dhaho فوق براala yahay
aniga waagaa yaraa shaaxa waa jeclaa jiray hadda sidii hore kuma ihi laakiin waxa hadda isbartid dabeecad noqonaysaa dhaqan ay noqonaysaa soo dhaqan inay ka noqotaa laga yaabaa oo miirka aagashatay haddaana maanta cabin madaxa ay xanuunayo marka dhib ma ku jiro waxyaalo kale noo xumaan lahaa laakiin shaaxa jeclahay abbo iska jeclaa shaaxaaga haye qofkan kale wuxuu yiri confession aniga waxaan zaa'id rabaa inaan u noqdo gabdhaha baaraha bulshada ku jiro waxaan rabaa inaan xirto waxay xirtaan waxaan rabaa inaan ayaga u ekaado waxaan zaa'id rabaa inaan u noqdo insta body waxaa la yiraahdaa gabdhaha Instagramka masuuraha iska soo qaado oo masuurahooda gashto oo maasha Allah iska qurxoon oo mactal fashuuqaayo maaragta adiga nabsi haadka wuxuu yiri qofkan waxaan rabaa in aan lacag ka sameesto quruxdayda soo abaayadan waxay rabtaa masuuro inay iska qaato internetka gashato eesas lacag ku keensato dhib kuma jiro abaayo waxaa jeceshaa waa samayn kartaa hadeenay dambi ahayn oo maanta aad isqaaqaawinayno xabadkaagii baridaada meelaha soo dhigeen laakiin xijaabkaaga haddaa xiranta oo masuur iska qaadid meel soo saaratid like taas wax ku helaysid why not laakiin noloshaada ha ku xirin ha dhihin heblaay seetaha rabaa inaan noqdo dib wuxuu imaanayaa marka aad rabtid qof kale inaad noqotid haddana waxay u eg tahay inaad rabtid dadka kale inaad noqotid shakhsi inaad noqotid ma rabtid waxaa rabtaa heblaay Instabody inaad noqotid midda kale waxa waaye aragtidan dadka ay ka gadayaan Instagramka aragti rasmi ah ma aha dadkan way soo qalqaleen way soo jarjareen jirkooda saxan ma aha wajigooda saxan ma aha dharkaas ay xiran yihiin inay dadka soo qaateen laga yaaba maalin kasta naag guuji xiran hadaa aragtid 700 oo masuurkeeda la gareysay lacag intaas guuji lagu ma siinayo soo waxa la yiraahdaa fake it till you make it macnaha fake dadka tus ilaa ka noqotid wixii aad raadinayso marka gabdhahana u jeedid dadkana u jeedid lacag waa isgaliyeen dad kale tane waxooday ka soo qaateen waxa si adiga gadooyaan soo waxa TV ka aragto Instagramki baaraha bulshada aad ka fiirsato badana dhab ma aha marka ha isku waalin laakiin hami hadaa u haysid adiga jismi ahaantaada ku qanacsantahay iyo waxa aad haysatid why not qofkan kale wuxuu yiri confession nin aad jiro aan jecelahay zaid aan u jecelahay waa ogahay ninkan inuu isticmaalayo laakiin kala ma jecli waxa ninkan siiyay dhaqaalihii dhan aan save gareysanayay oo 28,000 zaid aan u jecelahay zaid aan u rabaa kala ma jecli haduu lacagteeda igu rabo ama jirkeyga akhir xuma ma xasku geynayso ninkan waxa tiri kala ma jecli lacagteedii jirkeyga inuu ugu raacayo macnaha waa ogtahay lacagtii jirka la inuu kugu raacay oo rabid rasmi ah ayna jirin in sarcaada meesha isku sameynaysaa delusional la meesha iska dhigaysaa istubadiina walaalahay ugu noqonin wax jecel ma laha istubadiina mid waxa helaysaa waxa tahay kugu rabo qofka dhulka hadaa isku dhigtid saasa lagu jiidaya sida red carpet baaragta lagu soconaya meesha isdigtida lagu gooracaya faanta marka meesha iska soo qaad isjajafo 38 kun asiinaysid adiga waxa waaye top 10 iskaga dhigi kartid ninkiskii ugu dambeeyay kiishiligi ugu dambeeyay dirci ugu dambeeyay gogoradii ugu dambeeyay makeupkii ugu dambeeyay inta xirato aan ninka rabto ku soo jiida kartay ina adiga isgalisaa lagu qaat inta nin kale siileed because ninkaas lacagtaas uu ka qaatay na kala le oo hey who ni bi wallahi bila tala doqonima taas ku geysay isjajafo meesha iska qabaan ku dhiilaha taladaas waa talo walaaltinimo message aan ku soo diri doona inta hadda ku dhawa ku soo celin doona waxa u baahan tahay canaan badan tan confession ma aha dilemma waay ma faantay waxa waay meesha iska jajaf intii fiiri waxa laga yaabaa waqtin inaad iska dhumiso lacagtaadina ninka ka qaato na kaleeto hey hi who uu ku dhaho I love you I need you lacagtaada ku dhaho meel ku geegeeyo kadibna uu ku yiraahdo ku soo fadhiiso adios kuma baahni I don't need you I don't want you lagu dhaho markaas waxa waqti waa dhumisay lacag waa dhumisay ninkii waa dhumisay waa isbahdishay hadda waxa lagu qaataa lacagta leena ka dhunto waqtina uu ka dhumin waqti ma la soo celi karo lacag laakiin waa la soo celi karaa marka isjajafaan ku yiri istubadiina ay ugu noqonin qof istubadiina jecel ma jiro the last 2 years sanadkii horidoodii labadii sano asna qaanay qadkaan ay fiirsanayseen markasta waanay dhahay istubadiina wax jecel ma laha istubadiina ay ugu noqonina waxaan ku soo gabagabeynayaa sheeko qosol waxa waaye qofkii ii soo diray taageerahayga koowaad walaal gang all the way waxaan rabaa sheeko funny inaan kula soo wadaago professor Afrikaan oo jaamacadda Oxford wax ka soo bartay baa wuxuu shaqo ka helay wadanka China si uu macallin ugu noqdo jaamacad ku taalo Beijing
maalintiisii ugu horeysay ee xafiiska ayaa maamulka jaamacadda waxay u dhiibeen liiska magacyada ardaydu uu macalinka cusub u noqon rabo kadib isagoo raba inuu mid ugu waco si uu u kala barto ardadiisii balse aana weli bilaabin yeerista magacyadooda ayaa wax si lama filaan ah ooga soo fakatay hindhiso hachu kadib 5 wiil oo ardadii ka mid ah baa hal mar faraha isla taagtay xaadir macalin waan wada joognaa camal macalinkii qosol buu afka furtay ha kadib gabar gadaal fadhisa baa si kalgaceel ah farta u taagtay xaadir macalin aniga ayaa li dhahaa ha macalinkii isagoo kaadi ka imaarabto qosol daraadiisa ayuu wuxuu isdhahay istiraashada ama fasaletiga jeebka kala soo bax oo afka saaro sidii lagaaga dareemin laakiin nasiib daro telefoonkii baa dhulka ooga dhacay diiw kadib mid shuluq ah oo aad moodo inuu indhaha waxba ka arki karin baa farta taagtay xaadir macalin macalinkii afrikaanka ah intuu istaaga ka dhacay baa waxaa loola cararay dhakhtarkii ugu dhawaa markii uu naaxay wuxuu dhahay Nigeria halii bedelo cunsurinimo waa sheekadan diiw dhaaw astaghfirullah taasoo cunsurinimo intaa kusoo gabagabeynaya channelkayga haddaad ka hesho fadlan igu saaciday like to comment-ka iyo subscribe-ka haga ciilin lacag kuguma fadhiso Eid Mubarak waa la soo dahay Eid Mubarakta aan rajeynayaa caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo inaad ku iideen iidaan qaraabada haligu salaamo adios